sida uu u bukoodo jirka sidaas si la mid ah ayuu u bukoodaa qalbiga. Daweynta xanuunada ku dhaca jirka ayaa ka fudud kuwa ku dhaca qalbiga. Xanuunada ugu daran ee ku dhaca qalbiga waxaa ka mid ah kibirka oo ah inuu qofka iskala weynaado dadka, waayo waxa uu haystaa hanti, shahaado ama shaqo uu ku mashquulsan yahay. Sidoo kale waxaa jira dad kibra iyaga oo faramadan, jaadkanina waa kan ugu halisan isla weynida. Xadiis ayaa waxaa ku sugan jannada ma galo qofka uu qalbigiisa ku jiro saxar in la eg oo isla weyni ah. Dadkii wanaagsanaa waxaa dhaqan u ahayd inay si dhaqso ah isaga daaweeyaan marka ay iska dareemaan wax yar oo kibir ah. Saxaabigii Cabdullaahi bin Salaam lagu magacaabi jiray ayaa soo dhex maray maalmaha ka mida suuq isaga oo dhegta ku sita xaabo. Dadkii ayaa weydiiyey, miyaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa fillaan xaabadan? Waxa uu ugu warceliyey, haa, laakiin waxa aan doonay inaan dhabarka ka jibiyo kibirka. Allahayow inaga yeel kuwii aad qalbigooda ka ilaalisay kibirka iyo isla weynida.